haddii baduhu guraan si lama filaan ah maxaa dhici kara nolosha adduunku suuragal ma noqon lahayd bini'aadamka noloshiisu say noqon lahayd wax noole adduunka miyuu ka hadhi lahaa guud ahaan say noqon lahayd cimilada adduunku muuqaalkeenan ayaynu kaga hadlaynaa maxaa dhici kara hadday baddu qalasho nabadi korkiina aato saaxiibayaal barkulankeenani waa samawada tube haddii aad wax macluumaada ka faa'iiday suulka taabo barnaamijkeena ayaynu toos u gudagalaynaa saaxiibayaal 70% dhulkaynu ku noolnahay waa biyaha badda halka biyaha macaan ay ka yihiin 3%. 2% ka mid ah waa kuwa aan la heli karin kuwaasoo ku qarsoon qudbiga waqooyi iyo qudbiga koonfureed ee barafku jiifo inta soo hadhay oo eber dhibic 5% ah waa kuwa aan sida maalinlaha u isticmaalno cabitaan iyo cunto karin kuwaas oo intooda badan laga helo webiyada harooyinka iyo dhulka hoostiisa inkastoo biyaha macaan ay u baahan yihiin barnaamij gaar in laga sameeyo aynu soo laabano badda marka koowaad waa inaynu isla fahanaa faa'iidooyinka ay noo leedahay baddu midda ugu muhiimsan ayaa waxay tahay baddu waxay noo soo saartaa oksijiinta ugu badan ee aynu qaadano waxayna dib u nuugtaa carbon dioxide ay soo saaraan noolaha iyo warshaduhuba 50 jeer in ka badan gibilka inagu xeeran inta uu qaato waxay joogtaysaa ecosystemka bey'ada nolosha waxayna qaadaa kuleylka iyo cimilada kuwaas ay u gudbiso qudbiga barafku jiifo iyo gibilka inagu xeeran ama atmosphere-ka waxaanu ka soo saaranaa kalluun waxaanu u adeegsanaa isku socodka qaarad ilaa qaarad annagoo adeegsanayna doonyo iyo maraakiib kuwaasoo wada dad iyo duunyaba haddaynu intaa isla fahanay badda waxaa ku soo arooray aayaadka ilaahay 41 mar ayuu ilaahay ku sheegay quraankiisa inta haddaynu isla fahanay hadda waxaynu gudagalaynaa haddii ay baddu mar kaliya qalasho lagu soo tooso iyadoo baddii gebigeediiba qalashay sida dabiiciga ah baddu waxay qaadan kartaa inay qalasho sannado ilaa iyo waqti aan la garanayno aad u dheer marka ugu horeysa ay baddu sidaa u qalasho maxaa dhici lahaa waxa ugu horeeya dhici lahaa waxay ahaan lahayd gebi maraakiibta iyo doonta dul socday waxay u degi lahaayeen dhulka hoos kabacdi waxaa dhici lahaa inay maraakiibta iyo doomuhu gebigooguba ay gunta badda ku dhacaan ay jajabaan bartaasna ay ku leedmaan naf iyo maalba dhammaan makhluuqaadka ku nool badda way wada dhiman lahaayeen daqiiqado gudahooda waxaana halkaa ka dhalan lahaa ur zaa'id ah waxaa siyaadi lahaa kulaylka wuxuuna gaadhi lahaa 153 degree Fahrenheit habeenkiina waxaa dhici lahaa qabow zaa'id u daran oo dadku u dhiman lahaayeen wax qaarada la yiraahdo ma jir lahayn dhulka dhamaantiisa waa isku wada furnaan lahaa waxa uu dhulku isku bedeli lahaa saxare dhammaan geeduhu ay wada qalili lahaayeen roob la'aan darteed waxaa dhalan lahaa dabkaasoo qabsan lahaa kaymihii qalalay waxaana dabar go'i lahaa wax kasta oo nool haddii waxyaabo oo lagaga hortago kulaylka zaa'idka iyo qabowga zaa'idka la helo dadka dhammaantood waxay u qixi lahaayeen labada qudbi ee waqooyi iyo koonfur bartaas uu barafku jiifo ugu dambeyn barafkaasina uu dhalaali lahaa isagoo gebigiisuba uu baxayo kulaylka zaa'idka ah darteeda inta badan waxaa roobabka sababa marka ay cadeedu ku dhacdo baduhu waxay sameeyaan uumibaxaas oo daruuro isku bedelo kabacdi da'a saas ayay biyuhu ku samaysmaan roobka ahi marka ay baddu gudho wax roob ah ma jiraayo kabacdi dhulku dhan wuxuu markaa isku bedelayaa saxare taas oo wax nolol ah oo ka suura galaysa ayna jirin dhulkii waqti markaa wuxuu ekaan doonaa sida meerayaasha kale ee mariiqoo kale gebigiisuba wuxuu noqonayaa meero cas oo lama degaan ah oo midabkiisu xataa yahay sida mariiqoo kale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin nimcooyinka ilaahayna siiyey cadad iyo xisaab ma laha oo inaanu ilaa hadda aynanu ugu shukriyeynin waxau ilaahay suuragal ka dhigay wax aan suuragal ahayn adduunka gebigiisuba ecosystemku wuu isku wada dheelitiran yahay haddii shay laga waayo wax baa dhiman marka ilaahay waxaana uu abuuray koonkan dhammaantiisba umuun abuurin si ula kaca wax walbaba ilaahay reason ayuu ka lahaa shay kastoo adduunka ku suganna reason buu u taagan yahay oonaan anagu warka haynin maalin kastaba waxaa imaanaya wax cusub maalin kastaba waxaa la baranaya wax aan hore loo aqoonin mar walbaba bini'aadmigu sii jiro
wuxuu baranayaa waxyaabo ka qarsoon oo ilaahay mooyaane aan cid kale aqoonin. marka yacnihii aayaadka ilaahay ma aha qur-aanka keliya. aayaadka ilaahay waxa weeyaan waxa dhulkan iyo waxa naga qarsoon iyo koonkan dhammaantiis ah. ilaahay aayaadkiisa dhowr jeer ayuu ku dhahay afalaa yacqiluun afalaa yanduruun. yacnihii waa inaad wax eegtaa, waa inaad wax fiirisaa, waxa kaaga soo baxaya waxa uu ilaahay ku abuuray, reasonka uu ilaahay adduunkan kuu keenay iyo aayaadkiisa kaaga soo baxaya. barnaamijkan intaasuu ka dhan yahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.